هذه آد بادي سلامي warkaygu ma badno waxa weeyaan madaxweyne ku-xigeenka oo constituency ka soo wada jeedno waxa weeyaan aad iyo aad rag isku dhow baan hayn laakiin si xurgufta moogtay siyaasaddu waa iska sunnatul hayaat inta wax dhaafsan ma jirin waa labada iyadoo baahan marka takowaad waxa weeyaan madaxweyne ku-xigeenka oo gartay inuu iiga tanaasulo arintii aan isku qabanay aad iyo aad baan moogtay ugu mahadnaqayaa waa nin moogtahay xisbiga raggii dhisay kamida hedel badanna ka soo galay isagoo u turaya marka xisbigii uu moogtahay asaasiyaashiisa kamid ahaa xisbigii uu dhowr iyo 10 sano hedelka soo galiyay maanta in uu moogtahay iiga tanaasulo waxa weeyaan wuxuu iga mudan yahay mahad iyo sharaf taasi waa halka waa ku socota madaxweyne ku-xigeenka oo constituency ka soo jeedno tuulada ka soo wada jeedno dad aad iyo aad isku fiican nahay isaga iyo reerkaba aan dhagax joog isuna waxa kale oo mahadnaqaya intii ka shaqaysay isku soo dhaweynta ee hawsha ka siixan weydi ama wasiiraan noqdaan uguna cadcad Soomaali yaa noqoto moogtahay dhaqan iyo moogtahay reer aad iyo aad baan iyaga ugu mahadnaqaya waxa kale oo moogtahay halkan ka sheegaya waa labada iyada uu baa moogtahay dabac siyaasadeed galay gobolkii aan ka soo jeednay mujtamaca ku nool waxaan ku leeyahay nabadgelyada aan wada ilaashano walaalnimadeena aan xajino waxaan waxa weeyaan hadii inaku moogtahay aan hore moogtahay tartan noocaas hawleena dhaxmari jirin beelaha dhaxaad buu dhaxmari jiray dabeedna markii way ka heshiin jireen sideedii dhaqankii oo kale aan qaadano aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa beelaha dhaxe iyo walaal idinku anigu idin ma bixinin hawsha badan ee dadka taasina waxa weeyaan waxyaabo hore oo galay oo fara badan marar badan oo baad siyaasadda isku qabateen kaalintii aan ka galnay iyada wax ka soo gudeen imikii haatana madaxweyne ku-xigeenku waxa weeyaan waa odaygii waa madaxweynahaygii waa la shaqaynayaa mustabeed buu yahay wax dhibaato ma jirto shicibka awdal waxaan leeyahay waanaka iskarab joogna waanaka gacmaha haysaysanna iyayna xurguftaasi idinla fogaanay waa aan ka hawlgallo sidii dadkeena iyo xisbigaba aan moogtahay hawl inoo gacmaha haysanna aan uga hawlgal lahayn aad iyo aad baad